musharaxa madaxweynaha xisbiga Ucud aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen oo maanta soo gaaray gobolka Hawd socdaalkiisa ayaa daaranaa uu kuurgalka habsami socday diiwaangelinta codbixiyayaasha haddaba waxa maanta si baaxad leh loogu soo dhaweeyay degmooyinka Balligubadle iyo Ballacabane aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa soo dhaweyntii abad ugu ballaadhneed lagaga soo dhaweeyay degmooyinkaasi waxaana muujiyeen xuduudda taageero ee u hayaan xisbiga Ucud koob fagaara oo kala hadleen mas'uuliyiinta xisbiga Ucud waxa uu goorna halkaasi ka hadlay Mujaahid Cali waxaana ka mid ah hadaladiisii hargeysa kala soconnaa runtii sida diiwaangelinta u wadaan waa si abaabulan oo fiican oo qurux badan waxaanu weydiinaynaa xukuumadda waxa takooray gobolka Hawd ee u diiday in ay sida gobollada kaleba iyaguna noqotay dadkeeda soo maray waxaanu uga fadhinaa inay ka jawaabto dawladdu haddii ay la hawlgeli lahaayeen gobolkoodii hore ee Hargeysa bisha dambe ee Abriil oo haddii alla yiraahdo aynu filayno inuu gugiba horo ayay ku beegmi lahayd marka waxaanu leenahay komishanka doorashooyinka iyo xukuumaddaba waa in il gaar ah lagu eegaa gobolka Hawd Farxaan Maxamed Good oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Balligubadle Jamaal Cali Xuseen waa murashaxa madaxweynaha u taagan xisbiga Ucud waxaan xasuustaa Jamaal Cali Xuseen maalintii siyaasadii SNM cid lagu aamino la waayay ee aabbaha guriga nadiif fadhiyay yaa kaartadii uu dhigay waxa lagu galay Hargeysa kaartadii aabbihi Jamaal Cali Xuseen aabbihi kaartadiisa Hargeysa lagu dhigay waxaan leeyahay ha lagu tixgeliyo oo haloo tixgeliyo gabagabadii waxaa soo afmeeray musharaxa ahna aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen waxaanu ka warramay taariikhda Balligubadle iyo mihnada uu xambaarsan yahay socdaalkiisu hadnaqaya odayaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo dhammaan dadweynahan ku dhaqan degmada Ballacabane sida diirana loo soo dhaweyseen iyadoo xilli ay duhura ay tahay runtii waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay khayr idinka siiyo tolo intii ay xukuumaddan 7 sano talo ma ka qabatay marka waxay igu yiraahdeen ma isagoo sidan ay ugu yimaadeeno kole isagoo sidan way kaga tagayaan isagoo sidan way kaga tagayaan ilaahay annaga hana garansiiyo haddii ilaahay nagu guuleeyo ilaahay hana garansiiyo inaan ummadda dib ugu noqono oo aanan xoolahooda ka xadin Balligubadle waxa weeye waa goobtii dalka laga xoreeyay waa goob taariikh mudan weeyaan waxa weeyaan waxaan aad uga xumahay waxa ka hadlay inaan idinku soo beegano xilli kaliila xilli aad abaar ku jirtaan oo adag inaan idinku soo beegano waan ka xunnahay waxaan aad uga xunnahay Cali Guray baa hadalkii dhameeyay laakiin in xadka laga xidho Balligubadle waa arrin aan wanaagsanayn sidaa uu Cali Guray sheegayna waxaan leeyahay anna waa ku adkeynaya waxaan leeyahay xukuumadda waa reer Balligubadle waqtiga ha loo kordhiyo waqtiga diiwaangelinta sababtoo xadkii baa laga xidhay Cabdiraxmaan Samariye